Waxaa habeenkii xalay ahaa xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Finish ka soo baxday warqad lagu ganaaxay gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club Mudane Abuukar Sheekh. Warqadan ayaana siyaabooyin badan loo kala dhigay maadaama kooxda MCC ay ka baaqatay kulan ciyaareedkii kala baxaya horyaalka Soomaaliya Premier League ee la lahayd naadiga Horseed. Ciyaartaas waxay ahayd mid aad u xiiso badan waxaan u soo daawasho tagi karay taageerayaal fara badan balse go'aan ay qaateen kooxda MCC taas ay ku doodeysay in khalad laga gala kooxda ayna ku baajisay ciyaartaasi weyneed ee MCC iyo Horseed. Kulan ciyaareedkaas ayaa ahaa midkii kala bax ahaa go'aami karay kooxda sanadka ku guuleysan karta horyaalka Soomaaliya Premier League ee 2021. hase yeeshee xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa habeenkii xalay warqad dheer oo soo saaray. Waxaa warqadda ku qornaa sida tan: gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamed Cumar Finish oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir xogayaha guud ayaa maanta xarunta aqalka dowladda hoose Xamar kulan kula qaatay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Mudane Cabdiqani Saciid Carab. Kulankan ayaa looga hadlayay kulan ciyaareedkii 2 bisha Agoosto 2021 gabagabada uu ahaa finaalka horyaalka kubadda cagta dalka oo ay naadiga dowladda hoose Xamar ka baaqsatay inay la ciyaaraan dhigooda Horseed. Dood dheer iyo falanqeyn kadib wuxuu maamulka gobolka Banaadir ammaan iyo mahadcelin u jeediyay ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan juhdi iyo waqti ay geliyeen sugidda amniga kulanka ciyaareedkaas iyo guud ahaan waqtiga ay ku bixiyeen sugidda amniga horyaalka kubadda cagta dalka. Sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa wuxuu ganax dul dhigay gudoomiyaha kooxda MCC Mudane Abuukar Sheekh taas oo ah in muddo 2 bilood uusan heli doonin wax gunno ah kadib markii ay si iskood go'aan u qaateen ayna ka baaqsadeen ciyaartii finaalka ahayd ee horyaalka lagu go'aaminayay. Ugu dambeyn wuxuu maamulka gobolka Banaadir farayaa maamulka MCC in raaligelin buuxda ay siiyaan taageerayaasha ciyaartoyda iyo dhammaan bahweynta isboortiska ayaana warqadda ku qorneed. Warqadan ayaana shakhsiyaad badan oo kubadda cagta taxliiliya doodo badan oo kala duwan ka keenay, waxayna ahayd warqad qof walba uusan filayn in ay ka soo baxdo xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir. Maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa in la furo tartanka weyn ee General Daawud xilli kooxda MCC aysan weli bilaabin tababarkii ugu diyaar garoobeyso tartankaasi. Waa sheeko kale oo la rabo in la taabto maadaama MCC ay ku cataabayso qaladkii laga galay horyaalka Soomaaliya Premier League laguna siiyay kooxda Horseed inay ku guuleysato horyaalka muddo 30 sano kadib. Gudoomiyaha kooxda MCC Abuukar Sheekh ayaana markaan 2 bilood gunnada laga jari doonaa taas oo ganax ahaan ku muteystay ciyaartii weyneed ee ka baaqsadeen ee finaalka ay la ciyaari lahayn naadiga Horseed. Haddaba haddii aad daawanayso muuqaalkan maxay kula tahay adiga?